Gorgor! Gorgor! gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa ka soconaya howlgallo kala duwan ee wadaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa halkaasi isaga baxay. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaasi kaabi ku haya. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay howlgallada dalka iyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo markaasi howlgallo kala duwan ka wada gobolka Shabeellada Dhexe. dhinaca kale maanta waxaa furmaya baarlamaanka markiisii ugu horeysay tan iyo markii muddadan dheeraadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa magaalada caasimadda Muqdisho oo ka dhaco. waxaa shir gudoomin doonto Sacdiye Yaasin Xaaji Samatar maadaama uu meesha ka baxay shaqada Nuur Aadan Madoobe. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inuu maanta baarlamaanka ka hor hadlo. waxyaabahaasi ayaan muuqaalkan qaybtan idinkula wadaagi doonaa. soo dhawaada khayrtan daawanaysay. waa maalinimo Sabtiga 1 Agoosto ee bisha 8 sanada 2026. haddii aynu ka horeyno howlgallada ka soconaya gobolka Shabeellada Dhexe, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan waxay ka wadaan gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan deegaano dhow degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. halkaasi waxaa isaga baxay xubnihii ugu badnaa oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. godad ay ku lahaayeen deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaana la soo warinayaa inay halkaasi isaga baxeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee markaasi sida gaarka u tababaran ayaana kaabi ku haya deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxaa markaasi la tilmaamay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay howlgallada markaasi laba jibaareen isla markaana ay doonayaan in markaasi ay ka saaraan gobolada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo gobollo kale ay ku sugan xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dhawaan ay ahayd markii 6 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen taliska qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka uu hogaamiye Cali Cagey, taasi oo markaasi ku sugan ama kuwaasi oo ku sugan duleedka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. 6 xubnood oo markaasi ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa ciidamadaasi isku dhiibay. haatanna waxaa la dareemayaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ka soconaya gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. dhinaca Hiiraan haddii aynu eegno, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan waxay ka wadaan deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, aagaga degmada Waabweyn, sidoo kale Nurfanax iyo deegaano kale ayayna ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 27aad ay waxay ka wadaan howlgalka dhana kooxda Al-Shabaab. degmada Aadan Yabaal iyo sidoo kale degmada Masaajid Cali Guduud ama deegaanka Masaajid Cali Guduud oo dhow gobolka Shabeellada Dhexe ka tirsan ayayna ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay kaabiga ku hayaan. waxaana la soo warinayaa in xilli walba ay markaasi ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya la wareegi doonaan. dhawaan ay ahayd markii wasaaradda markaasi wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi uu tilmaamay in markaasi jab xooggan la gaarsiiyey xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya amaba haatan wixii ka dambeeya si weyn loola wareegi doono waa markaasi deegaanada ay kaga sugan yihiin kooxda Al-Shabaab gobolada Shabeellada Dhexe, Hiiraan, Galgaduud iyo sidoo kale gobollo kale ay ku sugan yihiin. dhinaca maamulka Jubbaland waxaa ka soconaya waa markaasi kulamo kala duwan oo lagu dardargelinayo dagaalkan ka dhana kooxda Al-Shabaab. taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africom ayaana la kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe. waxa uu kala hadlay howlgalladan markaasi la doonayo in sida dardarta leh looga sifeeyo kooxda Al-Shabaab gobolada dalka. magaalada Kampala caasimadda Uganda shalay waxaa kusoo gabagaboobay shir u dhexeeyo madaxda midowga Afrika ee ciidamada AUSOM. waxaa la sheegay in ciidamadan 2 sano oo dheeraad ay kusii sugnaan doonaan gudaha Soomaaliya, waxaana markaasi la tilmaamay in markaasi ciidamadan ay si weyn uga qayb qaadan doonaan dalka. madaxda sare ee dalka gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka General Ibrahim Maxamed Maxamuud oo iyagu ku sugnaa magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda ayaana markaasi waxay ka codsadeen madaxda Afrika in markaasi ciidamada AUSOM ay ka jooga Soomaaliya in 2 sano oo dheeraad la siiyo si ciidamada xoogga dalka ay isugu kaaftoomaan ama markaasi ugu diyaar garoobaan la wareegida deegaanada ama markaasi goobaha ay ka baxayeen ciidanka AUSOM. wixii intaa ka dambeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxay laba jibaareen howlgallada ay markaasi ku doonayeen kooxda Al-Shabaab inay kaga saaraan dalka. gobolka Jubbada Hoose ama ayraada gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka soconaya howlgalkii ugu weynaa oo lagu qaadayo saraakiisha sarsare iyo xubnaha sare ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab. waxaana haatan soo warinaya in godadkii iyo markaasi difaacyadii ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Dhexe isaga baxeen deegaanada muhiimka kooxda Al-Shabaab oo cadaadis xooggan kala kulmaysa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo markaasi macusleyda oo loo yaqaan dadka deegaanka.
howlgalladan ayaana markaasi la doonayaa in kooxda al-shabaab looga sifeeyo deegaanada ay markaasi kaga tirsiiyeen gobolada dalka. gobolka Hiiraan deegaano muhiim ah ay ka haystaan degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan, degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale deegaano kale ayana markaasi ay ka haystaan gobolka Hiiraan, halka gobolada Shabeellada Dhexe kaga sugan yihiin degmada Aadan iyo Baal, degmada Masaajid Cali Guduud oo saaka la tilmaamayo ama markaasi la soo wareynayaba inay isaga baxeen saraakiishii ugu badneed oo ka tirsan kooxda al-shabaab, iyagoo markaasi degmada Cadale iyo sidoo kale deegaano kale oo u dhow markaasi xooga saaraya si ay difaac weyn uga sameystaan ay kaga hortageen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. balse dowladda hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kala doorasho ay ka wadaa, halka dhinaca kalena ay doonayso howlgal la yaab leh inay markaasi kaga saarto kooxda al-shabaab waa markaasi deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka ama markaasi gobolada dalka. muqdisho haddii aynu eegno maanta waxaa furmaya kala fadhiga 8aad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. tan iyo markii sanadkan dheeraadka dowladda federaalka Soomaaliya ilaamisay iyadoo mucaaradka qaar ay si weyn u diidan yihiin magaalada caasimadda ee Muqdisho, maanta waxaa ka dhacaya kala fadhigaasi waxaa shirgudoomin doonto xildhibaan ama markaasi Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar oo iyadoo ah waa markaasi gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. gudoomiye golaha shacabka baarlamaanka waa markaasi federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe ayaa isaga baxay maadaama loo doortay hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. maanta baarlamaanka inta badan waxaa markaasi xogaha aynu helayno ay tilmaamayaan inuu booq ku furmi doono iyadoo xildhibaanada mucaaradka ay si weyn u diidan yihiin kala fadhigan oo ay markaasi dowladdu ay iclaaminayso maadaama muddada dheeraadka ah ay ku darsatay dowladdu ay tahay markii ugu horeysay. lama oga sida ay markaasi kaga qayb gali doonaan madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland. Saciid Cabdullaahi Deni xukuumadda hogaamiyo ee Puntland oo khilaaf weyn oo kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka hogaamiye Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tilmaamay inaysan u aqoonsanayn dowlad jirta. xildhibaanada maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa iyagu markaasi madasha ka maqnaan doona sida xogaha qaar ay markaasi tilmaamayaan, waxaana xildhibaanadan ay qaadaceen in muddaxileedkii sharciga ahaa ama rasmiga ahaa uu dhamaaday, waxaana markaasi la soo wareynayaa in maanta Jubbaland iyo Puntland ay ka maqnaan doonto kala fadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dhinaca kale xubno mucaarada oo iyagu kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa iyagu si weyn u diidan kala fadhigan, waxayna tilmaameen in muddaxileedkii rasmiga uu dhamaaday, maantana waxaa la filayaa inay booq ay ku furmi doonaan. dhinaca kale waxaa la soo warinayaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si degdeg ah dalka ugu soo laabtay oo markaasi maanta uu ka hor hadli doono baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxa uu ka horjeedi doonaa waxyaabaha uu kala soo kulmay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda. waxa uu ka hadli doonaa ciidamada AMISOM sababta uu uga codsaday dalalka Afrika inay markaasi sii joogaan gudaha Soomaaliya. waxa uu markaasi sidoo kale uu ka hadli doonaa waxyaabaha ku kaliftay dowladda federaalka Soomaaliya in markaasi ay diido in meesha caalamka ama markaasi waa dalalka shisheeye ay markaasi ay gudaha u galaan ama ay soo farageliyaan xaaladda dalka. Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlayay kadib gabagabowgii kulankii ama markaas shirkii Kampala ka dhacay, waxa uu sheegay in markaasi dalalka shisheeye uu ku tilmaamay inay markaasi si weyn u carqaladeynayaan siyaasadda dalka. waxa uu sheegay in markaasi madaxda Soomaaliyeed ay ka heshiin doonaan waxyaabaha la isku khilaafan yahay ee markaasi dalka ka jira gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. maanta ayaana la filayaa inuu ka hor hadlo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dhinaca kale lama oga sida markaasi rasmiga ama markaasi uu ku soo qabsoomi doono kulankan iyo guddoonka cusub oo maanta la dooran doono, iyadoo markaasi musharaxa gudoomiyaha golaha shacabka Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac si weyn ololihiisa looga dareemi doono kulankan maanta ka furmaya caasimadda Soomaaliya Muqdisho. haddaba waxyaabaha ka soo kordha wararkeena dambe ayaana kula wadaagi doonaa.